kadib markii habeennimadii xalay ahaa lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee cidda ku guuleysatay doorashada madaxtinimada ee dalkani Djibouti oo ay ku tartamayeen madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo ka tartamayay xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UNP iyo Sakariye Ismaaciil Faarax oo ah murashax madax bannaan ayaa markii ay natiijadaasi soo baxday isla markaasna lagu shaaciyay in doorashadaasi 2021 uu ku guuleystay mar kale madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxaa jira hambalyooyin ay soo dirayaan madaxda dawladaha Soomaaliya iyo kuwa caalamku. madaxweynihii hore ee dawladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed oo bartiisa internetka gaar ahaan Facebookiisa ku shaaciyay isla markaasna soo dhigay warqad hambalyo oo u dhignayd sidan: waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha dalka Djibouti ee walaalkeen Ismaaciil Cumar Geelle oo markii shanaad loo doortay inuu sii hogaamiyo dalka aan walaalaha nahay ee Djibouti. waxaan leeyahay Allaha kula garab galo xilka culus ee shacabka Djibouti ay ku doorteen. waxaana u rajeynayaa guud ahaanba Djibouti horumar iyo barwaaqo. qoraalka kooban oo uu soo dhigay bartiisa Facebooka madaxweynihii dawladii ku meel gaarka ahayd Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale waxaa xusid mudan in madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle qayb ka ah dadaaladii ay Soomaalidu kaga baxday ku meel gaarka isla markaasna shirar wada xaajood ah oo looga baxayo ku meel gaarnimada isla markaasna loogu guurayo federalism uu qayb lixaad ka ahaa. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaguna dhambaal hambalyo u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo mar kale ku guuleystay sanadkan 2021 hogaaminta talada dalka Djibouti. ana qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebookiisa mudane Xasan Sheekh Maxamuud u dhignaa sidan: waxaan u hambalyeynaa walaalkeen madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo shacabkiisu mar kale u doorteen hogaaminta Djibouti. waxaana u rajeynaynaa inuu ku guuleysto mas'uuliyadda culus ee mar kale la saaray. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo xukuumadda haata waqtigeedu dhamaaday ra'iisul wasaare ka soo ahaa imikana murashaxa u tartamaya hogaaminta talada dalka Soomaaliya ayaa isaguna bartiisa Facebooka waxa uu soo dhigay dhambaal hambalyo oo ugu hambalyeynayo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ee sanadkan 2021 ku guuleystay doorashadii ka socotay dalkaasi. qoraalkan oo u dhignaa sidan: waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo mar kale ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalka Djibouti ee aan walaalaha nahay. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle dawladda shacabka iyo reer Djibouti ba waxay Soomaaliya ku leedahay abaal weyn oo aan qoraal lagu soo koobi karin. waxaana labada dal ee Soomaaliya iyo Djibouti iyo shacabka labada dal ka dhaxeeya xiriir ku dhisan dhiig walaalnimo hidde iyo dhaqan soo jireen ah iyo dhalasho sokeeye. madaxweyne Ismaaciil shacabka iyo dawladda Djibouti waxaan u rajeynaynaa guul iyo horumar waara ayuu yiri Xasan Cali Khayre oo qoraalkaas soo dhigay bartiisa Facebooka. madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Deni oo isna bartiisa Facebooka soo dhigay dhambaal hambalyo oo ku aadan doorashadii ka dhacday dalka Djibouti ee uu mar kale ku guuleystay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa u dhignaa sidan: waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo dib loo doortay shacabweynaha Djibouti iyo dawladoodana waxaan u rajeynayaa horumar wanaagsan ayuu yiri Siciid Cabdulaahi Deni.